fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaan tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye gudaha gurigana kan waaye saddex qolaa gudaha ku jirta saddex qol iyo barsadooda waaye intaa laga galaa qolalkana waa kuwan qolka igu soo aadan oo kale saanu noqonayaa mugdi waaye miya saanu noqonayaa sabiita oo dhismaha ka soo hartay taas yaa qolka noocaas waaye labaadna kan waaye wajida shida nalkiisa intuu la egyahay qol kasta waa saan ujeeda waa saannimadiisa yaa sidoo kale qolka saddexaadna waa kana macallin dugsi quraan dhigayaa degan alaabtan asay u xareysan tahay say u dhex taala alaabtiisa alaabta jiifka waytan iyo armaajadii meelaha iyo waxaas waaye qolka saddexaada kana macnaha waa kan eebow qolka gurigaan sheegaya waa kana alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaan tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye gudaha gurigana kan waaye saddex qolaa gudaha ku jirta saddex qol iyo barsadooda waaye intaa laga galaa qolalkana waa kuwan qolka igu soo aadan oo kale saanu noqonayaa mugdi waaye miya saanu noqonayaa sabiita oo dhismaha ka soo hartay taas yaa qolka noocaas waaye labaadna kan waaye wajida shida nalkiisa intuu la egyahay qol kasta waa saan ujeeda waa saannimadiisa yaa sidoo kale qolka saddexaadna waa kana macallin dugsi quraan dhigayaa degan alaabtan asay u xareysan tahay say u dhex taala alaabtiisa alaabta jiifka waytan iyo armaajadii meelaha iyo waxaas waaye qolka saddexaada kana macnaha waa kan eebow qolka gurigaan sheegaya waa kana alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaan tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye gudaha gurigana kan waaye saddex qolaa gudaha ku jirta saddex qol iyo barsadooda waaye intaa laga galaa qolalkana waa kuwan qolka igu soo aadan oo kale saanu noqonayaa mugdi waaye miya saanu noqonayaa sabiita oo dhismaha ka soo hartay taas yaa qolka noocaas waaye labaadna kan waaye wajida shida nalkiisa intuu la egyahay qol kasta waa saan ujeeda waa saannimadiisa yaa
sidoo kale qolka saddexaadna waa kana macallin dugsi quraan dhigaya degan alaabtan si u xareysan tahay si u dhex taal alaabtiisa alaabta jiifka waytan iyo armaajadii meelaha iyo waxaas waaye qolka saddexaada kana macnaha waa kan eebow qolka gurigaan sheegaya waa kana alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaa tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye gudaha gurigana kan waaye saddex qolaa gudaha ku jirta saddex qol iyo barsadooda waaye intaa laga galaa qolalkana waa kuwan qolka igu soo aadan oo kale saanu noqonayaa mugdi waaye miya saanu noqonayaa sabiita oo dhismaha ka soo hartay taas yaa qolka noocaas waaye labaadna kan waaye wajida caaishada nalkiisa intuu la egyahay qol kasta waa saan ujeeda waa saanimadiisa sidoo kale qolka saddexaadna waa kana macallin dugsi quraan dhigaya degan alaabtan si u xareysan tahay si u dhex taal alaabtiisa alaabta jiifka waytan iyo armaajadii meelaha iyo waxaas waaye qolka saddexaada kana macnaha waa kan eebow qolka gurigaan sheegaya waa kana alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaa tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka fadhiisan karo yar waay banaankaas uu leeyahay darjiinkaasna anaa u sameeyey yaa meeshaan waxaa meel lagu nasto waaye ilmaha habeenkii qur-aanka u akhrisan karaa tanna waa jikadiisii yaa inta jikadii waaye gudaha gurigana kan waaye saddex qolaa gudaha ku jirta saddex qol iyo barsadooda waaye intaa laga galaa qolalkana waa kuwan qolka igu soo aadan oo kale saanu noqonayaa mugdi waaye miya saanu noqonayaa sabiita oo dhismaha ka soo hartay taas yaa qolka noocaas waaye labaadna kan waaye wajida caaishada nalkiisa intuu la egyahay qol kasta waa saan ujeeda waa saanimadiisa sidoo kale qolka saddexaadna waa kana macallin dugsi quraan dhigaya degan alaabtan si u xareysan tahay si u dhex taal alaabtiisa alaabta jiifka waytan iyo armaajadii meelaha iyo waxaas waaye qolka saddexaada kana macnaha waa kan eebow qolka gurigaan sheegaya waa kana alaabtiisa isaga barandadii iska dhex dhigtay tartiibtiisa kama qasna macalinka